بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan caawa ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed waxa kale oo aan salaamayaa oo aan si gaar ah u salaamayaa ummadda reer Awdal waxa weey maanta February oo 4 February waxay ka mid tahay maalmaha ugu madow ee taariikhda ummadda reer Awdal soo martay February waxa weey maalintii SNMtu ay soo gashay iyadoo wadata ciidankii Mengistu ee baadilka ahaa waxa February la xasuuqay ummad kuma oo lagu xasuuqay magaalada Boorama Dila iyo magaalooyinka kale Awdal waxaan tacsiyadaynaynaa oo aan xusaynaa ummadda masaakiinta ee iyadoo aan dagaal ku jirin oo aan dib qabin oo shacbiya inta la soo galay taangi iyo rasaas lagala daalay ee aan difaacna diyaar u ahayn waxa weey taariikhda noocaas madow waxaan ognahay dhalinyartu inay rabaan inay xusaan dadkoodii xasuustaan waxa weey waxa nimanka horgalayaasha kelmadana waxa bixiyay reer Ascaanood oo horgalayaasha bixiyay oo ay ka mid yihiin oo nooc kasta leh hadduu yahay mid suldaana iyo hadduu yahay mid sheekha iyo hadduu yahay mid maxaan ku idhaahdaa sunuud yaryar ka soo qaata Hargeysaba waxaan ognahay inay lacag idin qaybiyeen qaarkood oo dhalinyarta yar u diidayaan inay dadkoodii xusaan waxaan ognahay inay qaar dhegta wax ugu qabanayaan oo leeyihiin qolada iyo jilibka raacin waxaynu maanta ognahay dhulmahante oo ummad geesiyaala laakiin dhibaatadoodu ay ahayd qaybsanaan bay ahayd ay dhexdooda isdilaan oo dhexdooda laga faa'iideysto oo dhexdooda laakiin markay dagaal noqoto ummad aan ciidana ku dhacdeen laakiin maxaa duleynayay way qaybsanaayeen innagana waxa weeye dhibteennu kow waa cabsi munaafaqad basaasnimo howlo noocaasa oo u baahan runtii in ummadda laga sifeeyo waxyaabaha characteriska noocaas ee xunna dadka waxa ku abuuray gumaystihii iyo dadkii ka dambeeyay gumaystuhu uu gacanta ummaddan u geliyey oo horgalayaal ka samaystay ummadda dhexdeeda kuwaasoo fidinayay dhaqankaasi xun ilaa ay ummaddii noqotay ummad habida oo aan isdifaaci karin ninka soo duulay baa dhinta taa waxay idinku daliileen Laascaanood shalay markii ay ogolaayeen ay habadka ahaayeen 150 baa laga dilay maalintii bax yiraahdeen ay hablaha yaryar dhagax ku tuureen waadiga arkaya buur bay fadhiyaan kuma dhici karaan inay Laascaanood galaan because maxay u gelilayeen waxay ogyihiin in la isdifaacayo waa in waliba naftiisu jecel yahay in siday wax u dileen loo dilayo bay ogyihiin waxa weey sideedaba haddaana nabadda waxa lagu helaa difaac hadday lagu og yahay inaad wax dili karayso lagu iman maayo waxa weey ummadda reer Awdal dabayl baa imika socoto waad arkaysaan dabaysha raaca haddii kale waa la idiin imanaya dadka dabaysha raaci karaya raaca ama idinku sameeya oo dabaysha raaca ama dadka dabaysha raaci karaya raaca waliba waxaan idin sheegayaa dhalinyarta iyo dumarka Laascaanood ayaa khasbay suldaanada iyo garaadiyada iyo horgalayaashiiba ka adkaaday
suldaanadaa shiraya way kala tegi lahayn hadday og yihiin in dadku saamaxayaan laakiin waxay og yihiin maanta inaan la saamaxayn okay taasoo kalaa la idinka rabaa idinkana dhallinyarta reer Booramo in aad dabinka noocaasa gelisaan kuwa horgalayaasha iyo kuwa suldaanada iyo kuwa mashayikhda sheegta ee had iyo jeer u hadla Hargeysa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.